saddex meelood mid waa area faafka midna waa pressure-ka faafka midna waxa uu eegaynaa pulmonary artery pressure-ka eegaynaa okay marka severity-ga waxa weeyaan management-gu wuxuu ku xinaanayaa wuxuu symptomatic ma mise waa symptomatic hadduu yahay asymptomatic waxaan u sameynayaa follow up baan sameynayaa monitoring baan sameynayaa hadduu yahay symptomatic waxaan u sameynayaa percutaneous mitral balloon valvectomy baan sameynayaa waxa weeyaan in maxaa haday aan qofkii la furin laakiin balloon xagga laga geliyo deetana la balaariyo falfalkii okay amaba waxa loo sameynayaa mitral valve surgery loo sameynayaa oo valve-kiiba ayaa laga bedelayaa oo qalin baa loo sameynayaa markaas hore waa soo hadalnay waxa weeyaan mitral stenosis-ku waqtiga uurka wuxuu sameeyaa way ka sii dartaa xaaladdu way ka sii dartaa leano waxa kordhaya volume-kii dhiigga kordhaya deetana valve-kii fluid-kii mariyo badanaya marka waxa dhacaysa marka inuu mitral stenosis haddii maamadu lahayd uu waqtiga uurka uu ka sii daro haddii marka qaarkood ba waxa dhacda maamadii caadiya oo fit ah ayaa pregnant noqonaysa marka pregnant noqoto mitral valve disease leh mitral stenosis leh laakiin mitral stenosis ka simaal yahay aan la ogeyn ayaa waxa dhacaysa inuu uurka ay qaaday uu soo shaac saaro deetana uu muujiyo marka haddii ay xaaladdu maal tahay waxaan siinayaa maamadii diuretic waan siinayaa haddii kale waxaan siinayaa medical treatment haddii ku respond garan weydo tio ilmihii la ilaalinayo maamadii waxaa loo sameynaya maxay waxa weeyaan fulfoblast baa loo sameynayaa percutaneous ayaa loo sameynayaa haddii markaa medical therapy-ga ay ku respond garan weydo okay doctor Sol okay sida ogsoon hooyadu marka uurka leedahay dheeradu badan lama siiyo sababtoo ah amnitu fluid ka saari karaya sax marka hooyada la siinin waxa loo eegayaa trimester baa loo eegayaa mise sidoo loo siinaya dheeradu marka la siinaya waxa dhacaysa maadaama ay hooyadu waxaan eegaynaa marka wax isla eegaynaa benefit-kii iyo side effect-ka imanaya marka haddii ay hooyadu leedahay mitral stenosis ay yeelatay heart failure waxa weeye ay symptomatic tahay maamadaasi waxa la isku dayaa inay gaarsiiso waqtigii uu ilmahaasi langiskiisu maturity-giisa ay u gaarayay deetana marka waqtigaa gaadho waxaa loo sameyn karayaa hooyadii waa laga umulinayaa deetana heart failure-kii waxa weeyaan u yaraan karaya laakiin haddii aan waqtiga ay soo dhoweyn oo first trimester lagu jiro ama second trimester lagu jiro hooyadii intaasoo dhan dee saa kuma noolaan karayso waa in dawooyinkii loo bilaabaa marka dawooyin xataa contraindicated ku ah waqtiga pregnancy-ga ayaan ku qasbanaan karaynaa inaan bilowno marka furusamide ayadu amniotic fluid-ko keliya toonbay unbay yaraanaysa laakiin wax saardigtiyo badan kuma laha ilmihii marka loo eego aiska marka loo eego waxa weeyaan waa iska acceptable weeyaan marka waan la sii karayaa maamada hadday leedahay heart failure diuretic waa la siin karayaa xataa bisoprolosha ama beta blockeriska waxa weeyaan inta badan waa laga ilaaliyaa laakiin haddii ka fursan weydo waa la siinayaa marka maadaama ay tahay maal waxaan siinayaa diuretic ayaan siinayaa marka qalliinka laftarkiisu marka maamadii heart surgery lagu sameynayo oo wadnihii la furaayo amaba aan la furayne fulfoblasti loo sameynayo waxaa dhici karaysaa inuu side effect ku imaado ilmihii marka anoo taa og ayaa waxaan sameynayaa inaan hooyadii haddana qalliinkaa geliyo ilmaha iyo hooyada keeba more important ah waxa important ah hooyada haddaan badbaadiyo waxa weeyaan ilmo kale iyo 2 iyo 3 iyo 4 kale way dhali karaysaa laakiin haddaan ilmihii badbaadiyo hooyadan aan dayaco waxa weeyaan waxa laga yaabaa in labadooda waa marka waan siinayaa ninka la yiraahdo diuretic waan siinayaa waxaan eegayaa syndrome la yiraahdo Luttenberg syndrome waxa weeyaan ASD iyo mitral stenosis wada socda marka
labada abnormality waxa laga yaabaa inay congenital wada kulma yihiin ama waxa laga yaabaa markii hore qofka ASD lahaa deetana ASD gaasi uu ku dhacay rheumatic heart disease qofkii deetana mitral stenosis uu yeeshay labada scenario way dhici karayaan ragga dumarka Luttenberg syndrome wuxuu ku badan yahay dumarka maadaama congenital heart disease uu ku badan yahay dumarka Luttenberg syndrome wuxuu ku badnaanayaa female-ka maxaa lagu arkayaa waxa lagu arkayaa calaamadihii mitral stenosis-ka iyo calaamadihii ASD-ga fixed split-ki mediastinal murmur-ki waxa lagu arkayaa kale mitral flash malar flash-ki AF-ki pulmonary hypertension-ki wixii lagu yaqaan mitral stenosis-ka oo dhan waxa weeyaan waa lagu arkayaa wixii ASD-ga lagu arki jirayna waxa weeyaan waa lagu arkayaa okay haddaba complication maxaa dhacaya complication maxaa uu keeni karayaa ninka la raado mitral stenosis number 1 wuxuu keeni karayaa congestive heart failure wuxuu keeni karayaa pulmonary hypertension sida hore soo sheegnay mass effect buu keeni karayaayo waxa dhacaysa inuu left atrial-ki uu enlargement sameeyo left atrial-ki uu enlargement sameeyo deedna compression ku sameeyo recurrent laryngeal nerve-ka deedna uu keeno hoarseness marka uu laryngeal nerve-ka compression ku sameeyo ee uu hoarseness keeno waxa la yiraahdaa O'Tner syndrome baa la yiraahdaa marka uu left atrial-ku pressure ku sameeyo esophagus-ka uu keeno dysphagia waxa la yiraahdaa dysphagia megalatransis waxa kaloo keeni karayaa pulmonary embolism gaasina waxa weeyaan waa recurrent wuxuu kaloo keenayaa pulmonary infection pneumonia iyo bronchitis atrial fibrillation buu keeni karayaa wuxuu keeni karayaa cardiac due to atrial fibrillation ama arrhythmia wuxuu kaloo keeni karayaa atrial fibrillation gaasi wuxuu keeni karayaa inuu sameeyo stroke marka qaarkood stroke gaasi waxa keeni karaya waxa loo yaqaan mitral annular calcification oo ah mitral stenosis hadduu calcify noqdo oo sababta mitral stenosis keentay ay tahay calcification-ka waxa dhici karaysa calcification-kaasi inuu duulo deetana as thrombus ahaan uu ku sameeyo maskaxdii uu ku sameeyo thromboembolic deetana uu saa ku imaado marka qaarkood waxa dhici karaysa kii stenotic ah inuu dhiigu hore gadaal socon karaayo uu keeni karaayo mitral regurgitation uu keeni karaayo waxa kaloo iman karaysa tricuspid regurgitation oo waxa dhacaysa left atrium-ku marka uu enlargement-ka noqdo ee uu pulmonary stenosis sameysmo oo uu pulmonary hypertension sameysmo waxa laga yaabaa inuu pulmonary artery-giina uu hypertension ku sameysmo oo uu sameeyo waxa loo yaqaano tricuspid-kiina uu soo gaaro tricuspid regurgitation marka inta badan left heart-ka waxaa la socda right heart oo isku xidhan yihiin left heart-kiyo iyo right heart-ku ya marka maxaynu nidhahnaa corbulmonale maxaa la yidhahdaa corbulmonale waxa weeyaan waa lung disease ka yimid lung disease keenay right heart failure laakiin caadiyan waxaa dhacdaa in left heart-ku uu pulmonary vessels-ka damage gareeyo pulmonary vessels-kuna uu sii damage gareeyo right heart-kii markaa wada socdaan that's why markaa ku keenayo tricuspid regurgitation ku keenayo ma fahnay inta wax su'aala انت واحد سؤال اوكي waxaan eegaynaa mitral regurgitation waxa la yiraahdo marka maxaa keenay mitral regurgitation waxa keena maximatous degeneration ku dhacaya mitral valve-ki ayaa keeni karaya marka the most common cause of mitral regurgitation in UK waxa weeye maximatous degeneration okay marka mitral regurgitation wax kala ma aha valve-ki mitralka ayaa waxa dhacaysa inaanu si wanaagsan isku xidhin
inaan si wanaagsan isku xidheen deedna marka uu systole sameeyo mitralku ventricalku waxaa dhacaysaa inuu dhiiggu dib u noqdo deetana la tuuro dhiig aad u yar deetana uu maxaa ahaday left ventricalkii uu aad u weynaado maadaama uu isku dayo inuu dhiiggaa yara la tuuriyo compensate gareeyo deetana uu marka aakhirkii keeno left ventricular hypertrophy uu keeno uu aakhirkiina keeno irreversible left ventricular ama left heart failure uu keeno left heart failure uu keeno markaasaan hore uga hadalnay mitral valve wuxuu ka samaysan yahay anterior iyo posterior waa bicuspid marka waxaa jirtay haddii left atriumku weynaado keebuu saameyn jiray haddii uu MI dhaco keebuu saameyn jiray su-aasha ayaa xasuustaa left atrium yeah حيز بالكاس مسا ان بالك chamber فالفkan ka hadlay falka haddii left atriumku weynaado xagu muxuu saameynayaa wuxuu saameynayaa de middle valve middle valve kii which leaflet anterior posterior anterior left singulator isku day wanaagsan anterior yeah anterior ka tiraadeen ma hubtaan anteriorku waxaa ku xidhnaan jiray talow maalintii waan sheegay anterior leafletku wuxuu ku xidhan yahay aorta marka haddii lagu weydiiyo marka uu dhaco left artery enlargement hadduu dhaco yani imika waxaan soo sheegnay in mitral stenosisku uu keeni karayo mitral regurgitation keeni karayo suu ku keeni karayaa mitral stenosisku wuxuu keenaa inuu left atriumka weynaado samaha left atriumka weynaaday wuxuu samayn karayaa posterior leafletka inuu regurgitation sameeyo posterior leafletkaasi inuu waayo posterior leafletku wuxuu ku xidhan yahay maxay wuxuu ku xidhan yahay ventricalka anterior leafletkuna wuxuu ku xidhan yahay aorta marka maxaa ku xidhaya waxaa ku xidhaya corytendinigana waxaa kusii xidhan babylon muscles marka isku xidhan yihiin marka waxaan sheegnay anterior leafletku is attached the root of aorta anterior leafletku have dual supply while posterior leaflet have only one supply laba artery supply gareeya anteriorka posterior waxa supply gareeya hal artery deetana MI-gu wuxuu saameeyaa ama inta badan kaana posterior leaflet waxaan ku dhigan doonaa MI markaan dhiganayno side effect-ka MI-ga waxaa ka mid ah mitral regurgitation mitral regurgitation MI-gu siduu ku keenaya waxa weeyaan waxyaabaha attachka ku ah corytendinayada posteriorka waxaa qoodiya hal artery anteriorka waxaa qoodiya laba artery marka maadaama anteriorku laba artery leeyahay ischemia inuu ku dhacdo waa reer waayo laba duwar sablaabi leeyahay marka ka hal artery qoodiyo ayaa inta badan noqonaya maxay affected noqonaya okay marka inta badan marka valvular disease laga hadlayo number 1 waxa ah aortic stenosis number 2 waxa ah maxay mitralka ah saan hore soo sheegnay mitralka ayaa ah marka ninkan mitralka la yiraahdo isagu haddii uu maal ama moderate yahay qofku waa asymptomatic hadduu yahay safiir waxa weeyaan umusurtaagta noqonaya marka haddaad aragto mild mitral regurgitation calaamadihii heart failure kale waxa weeyaan cause ma aha mitral regurgitation ma aha wax kala ku keenay heart failure marka rule ahaan waxaanu qaadanaynaa hadduu yahay mitral regurgitation ku maal qodobka la qoro hadduu yahay maal
يا هدو يهي moderate وasymptomatic هدو يهي سفير ومنقنيا محي symptomatic ونقنيا هارس فاكتور وهو female sex وهو low body mass وهو old age ka renal dysfunction ka period MI period stenosis ama fat problems ama collagen disorders Marfan syndrome ama Ehlers-Danlos syndrome ka okay maxaa kaloo keeni karaya waxaa kaloo keeni karaya following coronary artery disease waliba coronary artery disease ka posterior MI post MI kadib waxa weeyaan wuxuu keeni karaa mitral regurgitation marka wuxuu ku imanayaa babillary muscle-ka ama coronary tendon-agi haddii uu affect garoobo ama waaxidadii quudinayay ay dhaawac soo gaadho waxa dhacaya mitral valve disease waa dhacaya kaasoo keeni karaya in waxyaabihii support gareynayay coronary tendon-agi waa kaa toos ugu xidhan yahay leafletku caadi ugu xidhan yahay coronary tendon-agi waxaa kusii xidhan mid kaloo myocardium ku xidha maxaa la yidhaahdaa babillary muscle marka kuwaas support gareynaya ayaa arteriyada qoodiya ayaa go'aya marka inta badan right coronary-ga iyo waxa weeyaan posterior coronary-ga right coronary artery iyo left coronary artery-gu waxa weeyaan haddii ay go'aan wuxuu saameynayaan babillary iyo coronary tendon-ga ay saameynayaan waxa kaloo jirta qofka hadduu leeyahay mitral valve problems oo ah mitral valve-ku si wanaagsan u xidhmeyn waa congenital disease lagu arko 5% ilaa 10 ku badan female-ka oo 100% inta badanna aan la gelin waxa keena waxa weeye ayaa la mitral valve problems waan niga doona insha Allah marka mitral valve problems wuxuu ku dambeeyaa marka qaarkood mitral regurgitation infective endocarditis mitral regurgitation keeni karaya rheumatic fever mitral regurgitation uu keeni karaya ama congenital uu noqon karaya okay symptoms muxuu noqonaysaa hore soo sheegnay mild moderate calaamad male safiir ba calaamad leh calaamadu leemanaya waxa weeyaan waa fatigue shortness of breath iyo edema ayuu leemanaya okay maadaama yahay mitral regurgitation marmarka la maqla waxa weeyaan waa baan systolic marmar calaamadiisuna waxa weeyaan waa blowing sidii hawo kale weeyaan inta badanna waxa laga maqlaa abagaska wuxuuna u raadid garooba axillaha waxaana ku sameeyaa S1 kan wuxuu ka dhigaa quad buu ka dhigaa mitral stenosis wuxuu ka dhigi jiray load buu ka dhigi jiray okay waxa kaloo sameyn karaya inuu sameeyo wardle speed S2 waxyaabii keeni jiray ECG waxaad ku arkaysaa broad B wave aad ku arkaysaa broad B wave aad ku arkaysaa waxa kaloo ku arkaysaa cardiomegaly aad ku arkayso X-ray-ga marka isaga kii hore mitral stenosis muxuu sameyn jiray enlarge wuxuu ka dhigi jiray left atrium laakiin mitral regurgitation-ku atrium-ki iyo ventricle-ki wuxuu ka dhigayaa enlarged ayuu ka dhigayaa okay echocardiograph waa muhiim wuxuu muhiim ugu yahay waxa lagu aasas gareynayaa severity-ga mitral regurgitation okay marka maxaa qofkii bannaan si loo treat gareeyo waxaad siinaysaa markaa nitrates diuretic positive inotropic amaba hadduu medical kaaga jawaab waayo waa ina aad ortaha balloon geliso deetana aad bomgareyso si aad cardiac output-ka aad kor ugu qaado yacni qof baa waxa ku dhaca mitral regurgitation dawooyinkooda bilowday dhammaan medical treatment-kii oo dhan baa ayuu bilowday laakiin weli qofku waa distinct inta qofka aad surgery-ga aad u diyaarinaysid waxaad samaynaysaa intra-aortic balloon bump wax la dhacdo oo ah bam la gelinayo aortaha deetana kor u qaadaya cardiac output-ki haddii uu heart failure soo baxo waxaad siinaysaa dawooyinkii heart failure-ka soo ahaan ACE iyo beta blocker iyo spironolactone okay haddii uu markaa uu kaaga jawaab waayo medical treatment-ka qofkii waxaan u bilaabayaa waxaan noqonaysaa inaan surgical aan u diyaariyo marka qofka hadduu yeesho acute severe regurgitation hadduu yeesho surgery baa indicated noqonaysa soo ahaan MI baa dhacay MI-gii baa keenay acute mitral regurgitation severe qofkii si ugu dhaqso badan leh inuu sameeyo surgery uu sameeyo okay marka surgery-ga sameeyo miyaan bedelayaa mise repair baan ku sameynayaa valve-kii labada waxa wanaagsan repair laakiin haddii aad repair ku sameyn weydo waxaad sameynaysaa replace waad ku sameynaysaa maxaad u gelinaysaa
artificial valve u gelinaysaa ama waxaad u gelinaysaa valves laga keenay khansir laga keenay. Okay, waa maxay calaamadaha kuu sheegaya waxa loo yaqaano mitral regurgitation? calaamadaha kuu sheegaya mitral regurgitation maxay yihiin? intaan bilaabin calaamadaha kuu sheegaya mitral regurgitation yaa xasuusta calaamadaha kuu sheegaya severe mitral regurgitation calaamadaha kuu sheega severe mitral stenosis yaa xasuusta? waxa kamid ah macaan open snapko waxay toolayeen maqnaada aye taas laba kala mid kala dhiman inuu jiro persistent maxay toolayeen persistent apical diastole inuu jiro macaan may isku day wanaagsan laakiin sameyn oo dhan waxaan kaloo nidhi langadka marmarka kor u qaadmaya langadka marmarka kor u qaadmaya waxaanu eegaynaa mitral regurgitation isaga maxaa severitygiisa maxaa lagu gartaa? waxaa lagu gartaa inuu mitral regurgitationka yahay severe waxaad arkaysaa left ventricle-kii aad u weynaaday kow waxaad arkaysaa upper speed-kii oo displaced noqday due to enlarged left ventricle laba iyo waxaad arkaysaa systolic trill taabato barbedgareysa upper-giskii waxaad maqlaysaa trill kaasoo ah systolic. Okay, waxaynu eegaynaa waxa la yiraahdo mitral valve prolapse. muxuu yahay mitral valve prolapse-ku? mitral valve prolapse-ku waxa weeyaan waa common waxaana la arkaa 5% ilaa 10 population-ka wuxuuna common ku yahay female-ka female-ka ayuu common ku yahay. Okay, maxaa keena haddaba? inta badan lama yaqaano laakiin waxaa la filayaa inuu associate leeyahay congenital heart disease sida BDA iyo atrial septal defect. waxa kaloo uu associate leeyahay cardiomyopathy ama Turner syndrome ama Marfan syndrome, Fragile X, osteogenesis imperfecta, pseudoxanthoma elasticum, Wolff-Parkin-Ward syndrome, iyo long QT syndrome, Ehlers-Danlos syndrome, iyo polycystic kidney disease. marka association-ka mitral valve prolapse-ka waxaa muhiim ah inaad ogaato Wolff-Parkin-Ward syndrome oo dhigan doona wuxuu yahay iyo low QT syndrome iyo Ehlers-Danlos syndrome iyo polycystic kidney disease. waxa weeyaan waxa ka eegaysaa dadyowga maxaa haday xanuunada leh waxaad ka eegaysaa mitral valve prolapse. Okay, maxaa lagu arkaa haddaba maxaa lagu arkayaa? waxaa lagu arkayaa waxa la yidhaahdo late systolic murmur uu heliyo maxay mid systolic click. haddaad aragto late systolic murmur iyo mid systolic click labadaas waa muhiim waxay ku sheegaysaa waxaa jira mitral valve prolapse. marka posterior leaflet-ka effectira oo markuu systole ku dhaco ayuu dib u noqdaa bulging ayuu sameeyaa. marka qofku muxuu ka cabanayaa? inta badan uu ka cawdaa qofkaasi atypical chest pain ama palpitation. atypical chest pain iyo palpitation wuxuu kaloo yeeshaa qofka mitral regurgitation buu yeeshaa soo hore soo sheegnay. wuxuu kaloo yeeshaa arrhythmia suu ku yeelanayaa? wuxuu ku yeelanayaa mitral valve prolapse-ku wuxuu associate leeyahay Wolff-Parkin syndrome iyo low QT syndrome. labadaasiba qofku waxay u nuguleysiiyaan inuu yeesho waxa loo yaqaano arrhythmia. marka waa complication-kii. number 1 waa mitral regurgitation, number 2 waa arrhythmia, number 3 waa emboli, number 4 waa sudden death weeyaan. Okay, century garayna waxaan u kala qaadaynaa waxaan mild to moderate ba mise severe. hadduu yahay mild to moderate waxaan u sameynaa follow up ayaan u sameynayaa. Okay, hadduu yahay haddaba severe mitral regurgitation waxaan u sameynayaa replacement ayaan u sameyn karayaa. replacement goorma loo sameeyaa? waxaa loo sameeyaa number 1 hadduu yahay severe mitral regurg hadduu jiro amaba haddii uu jiro mitral valve prolapse uu la socdo left ventricular failure. marka waxaa muhiim ah haddii qofka mitral valve prolapse haddii uu jiro uu severe yahay oo qalliin u baahdo waqtiga
aad qalliinka u samaynayso waxa muhiim ah inaad qofka aad ka eegto inuu leeyahay coronary artery disease si aad qofkii coronary artery-gaana aad qalliinka aad ugu saxdo mitrafaafkiina aad ugu saxdo marka inta badan aortic stenosis-kuna sidaa haddii uu jiro qof aortic stenosis leh marka koowaad waxaan oo qalliin u baahdo oo qofkaas u baahdo in wadnihiisa la furo coronary artery-giisaan fiirinaa si aan u ogaano haddii coronary artery disease uu jiro aan coronary artery-gaana aan u saxo isla markaa valve-kaana aan u saxo yacni qofka inaad wadnihiisa intaa furto aad farfareyso manipulate gareyso way adag tahay risk factor iyo mashaakil badan buu leeyahay marka wixii dhici karayay amaba wixii macquul in qofkaasi yeelanayo waa inaad maxaa haday aad ka egtaayoo aad u samaysaa okay intaa wax su'aala yani valvular disease waa meelaha ugu su'aalaha badan uguna kobansan ee la arko waxa weeyaan in valve-ku stenosis sameeyo regurgitation sameeyo waxyaabo iska aging persista oo waxyaabo qofkii inta badan maxaa haday lagu arko marka inaynu garanayno examiskana waa muhiim daily based practice-kana waa muhiim marka waa very important inaynu garanayno okay marka intaa dhaafin waxaan recap ku sameynayaa intii hore aynu soo marnay ayaan recap ku sameynayaa tobankaa minute baan kaga gaarsiinaynaa okay waxaan ka hadalnay cardiac markerska marka cardiac markerska waxaan ka sheegnay myoglobin iyo creatine kinase B iyo troponin samayn okay marka haddii uu MI dhaco keeba ugu horeeya ya xasuusta haddii MI dhaco cardiac enzyme-ka iyo protein markerska keeba ugu horeeya myoglobin sama iyo kale iyo glycogen phosphorylase isoenzyme GPB sama okay haddaan u baahdo in aan qof aan ka shakisanahay qof MI ku dhacay waxaan inuu yahay reinfraction inuu yahay maxaan keebaan ka eegayaa CKMB ma okay creatine kinase MB okay qofka cardiac markerska kuweba ugu muhiimsan ama kuweba ugu specific iyo sensitivity aad u sareeya kuwe troponin T iyo I troponin T iyo troponin I okay waxaan niri functional unit-ka myocardium-ku waa sarcomere wuxuu ka samaysan yahay tin iyo tigga tin filamentka maxaa ku xidhan C baa ku xidhan macna calciumka troponin C iyo tinka miyaa maka tinka ay tinka troponin oo dhan baa ku xidhan kow maxaa kaloo tinka ku xidhan tinka wali taagane waa su'aalaha muhiimkaa la isweydiiyo examiska tin filamentka maxaa ku xidhan troponin ka hayaa C-diisa iyo I-diisa iyo waxeedoo dhan ya myosinku waa tigga magaca kale tig filamentka myosin la dhahdaa laakiin tinka wax kaloo ku xidhan baa iska rabaa calcium buu hamiyaa calcium tigu ku xidhnaa troponinta waxa weeyaan I C iyo T ba la dhahdaa isku wada qaad marka waxaan iska rabaa troponin tinka waxaa ku xidhan tropomyosin waxaan sheegaya filan qofaa sheegayay tropomyosin baa ku xidhan tiggana waxaa ku xidhan myosin baa ku xidhan okay qof baa ku yimid maxaan u dirsanayaa marka kuwebaa ugu muhiimsan loo dirsadaa qof MI-ga myoglobin
waxaan u diray meena kuwa ugu muhiimsan ee loo dirso wax weeyaan waa duration ma deegan turbinint marka maxaa la eegaa initialka soo ma okay initialka markaan eego maxaan kala sameynaya markaa waxaad eegaysaa baseline-ka eegaysaa baseline-kan eegay taada muddo kadib baad uga qaadaysaa isa saacado kadib 10 saacadood kadib 10 to 12 saacad marka 10 ama 12 saacad kadib ayaa la eegayaa okay goorma odhanaya waa significant initialka goorma odhanaya uu kacsan yahay markuu mise ka badan yahay 0.01 markuu ka badan yahay 0.01 badalka okay marka waxa jira markii koowaad uu ka batay intaas uu ka batay markii labaad aan eegay markii labaadna uu sareeyo 0.1 kilowatt weeyaan markii labaadna uu sareeyo waxaan eegayaa waxyaabo kale turbininta kiciya waxyaabaha kale turbininta kicinaya maxaa kamid ah waxaa kamid ah myocarditis pericarditis tagarithmy oo kale waxaa kaloo kamid ah cardiomyopathy myocarditis ban heart failure hypotension kamid ah okay mitral stenosis maxaa keenaa niri isaga mitral waxa uu badan keenaa waxa weeyaan infection doctor rheumatic fever-ki waxaa kaloo keeni karaya congenital noqon karaya maxay kale waxaa dhaga calcification ku dhaca maxay tolay middle cuspiski okay maxay kale thrombus baa keeni kartay OLH thrombus baa keeni karaysa okay calaamadaha maxaa lagu arkaa daba calaamadaha waxa lagu arkaa badan calaamadaha heart failure-ka صح sidoo kale qofku wuxuu yeelan karayaa orthonar syndrome oo inuu compression ku sameeyo regular narration nerve kit dadana qofku shortness صح sidoo kale wuxuu compression ku sameyn karayaa maxay tooleen esophagus-ki kaas qofku yeelan lahayd dysphagia صح markii la dhageysto waxa lagu arkaa rumbling and apical diastolic murmur صح sidoo kale waxaad ku arkaysaa qofku inuu yeesho wheezing marar qaar maxay kale calaamadaha waxaa dhacaysa inaad aragtid second heart stroke marka dhageysto inuu yahay loud sidoo kale uu splitting sameynayo balskiisa ka waran balskiisa balska character marka leegi ma doctor maana bals abnormality ma karaya atrial fibrillation ma karaya how day kara maxaa lagu daweeyaa in atrial fibrillation-ka mitral stenosis-ka warfarin baa ayaa lagu daweynaya soma okay waxyaabaha severity-giisa lagu eegana maxaa kamid ah opening stabio lingatenin ku dhacaya marmarkii ku dhacaya okay mitral regurgitation isaga calaamadaha lagu garto maxaa keena horta isaga waxa keeni kara doctor MI hadduu ku dhaco maxay toolay MI baa keeni karaya infective myocarditis rheumatic fever waxaa keenaya maximatus degeneration baa keeni karaya mustamana waxaa kaloo keeni karaya infective myocarditis isaguna okay maxaa lagu garanayaa inuu yiri ninka la raamo regurgitation complication inuu yahay severe loo shay lagu gartaa doctor aye waxa loo gartaa apical speed meesha ka maqnaada due to large enlargement of the left ventricle صح iyo waxa kaloo ku arkaysaa waxay tolo inuu qofku yeesho trill at the big site صح iyo big speed iyo dysplasia dysplasia noqda big speed iyo dysplasia noqda